بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قدوميها دقمة عرمو قدومية كحجيك دقمة عرمو حلبانا دقولها دقان كدقمة عرمو تليه هو السليق بوليس كدقمة عرمو أهنا تريها سيديدة قبلها بري كركار يهيلان مامولك عافماتك مامولك وحبرشة عدين قلت جوكتا وضياش دقنك علماء الدين كدليرada dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh bacda salaam ilaaha ma iskale halkan isku keenay dhammaanteen inagoo nabad qabna caawa oo habeen farxadeed oo jimca soo galayo sidoo kale ay soo galayso maalintii asaaska Puntland ee 1 Agoosto sidoo kale ay tahay habeen weyn oo shirkadda isgaarsiinta Somtel ay idin soo bandhigi doonto barnaamijka mahadsanid macmiil qaybtiisii koowaad ama asbuuciisii koowaad oo daafurkiisii asbuucii hore lagu sameeyay caasimadda Puntland ee Garowe daafurkiisii koowaadna lagu sameeyay caawa magaalada Carmo ee Khaliijka caasimadda labaad ee gobolka Bari dhammaantiin farxad weyn oo runtii aan la soo koobi karin bay noo tahay intaan oo miidii degmada Carmo ah inay nagala soo qayb gasho kulankan oo aan u aragno inuu yahay kulan muhiim ah magaalooyin badan ayna nasiib u helin inay runtii barnaamijkan ka qabsoomo ama bilowga barnaamijka mahadsanid macmiil asbuuciisii koowaad oo Puntland oo dhan insha Allah waayo caawa Carmo iyo Khaliijka waxa ka soo bixi doona cidda guuleysaha ka noqon doonta barnaamijkan haddii aan marka hore guudmar kooban idin sameeyo dhammaantiinba macaamiisha kala gedisan ee ka soo qayb gashay iyo madaxda kala gedisan ee barnaamijkan ka soo qayb gashay barnaamijka mahadsanid macmiil oo asbuucii hore lagu daafuray caasimadda Puntland ee Garowe waa barnaamij ay shirkadda isgaarsiinta Somtel ugu tala gashay inay macaamiisheeda runtii garbaha u ah oo mar walba adeegsada adeegyadeeda kala gedisan haday noqon lahayd idaabka ISP-ga internetka adeegyada kala gedisan ee shirkaddu bixiso inay tiraahdo macmiil waad ku baahsantiin inaad noqotaan garabka yaga aan uga mahad celino abaal iyo runtii hadiyado qaaliyana lagu celiyo macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel sida aad ka waraysaan waa shirkadda dadweynaha marka ay naanaysta la baxday shirkaddu waxa ay ka turjumaysay inayna shirkaddu haddii aad business ku aqoon jideen isi kaliya wax iga iibso waxbaan ka qaadanaya annagu hadda waxaan ugu talagalay aan kaga duwanahay shirkadaha kale ganacsiga ama isgaarsiin ha noqdeen ama ganacsiga kala gedisan ha noqdeen inaanu niraahno waxbaan ka iibsaday wixii aad iga iibsatay baan waxaan kuugu darayaa wixii aan ka faa'iideynaa dib kuugu soo celin taas oo ka dhan shirkaddu sida aad ogtihiin waxay ka qayb qaadataa ma aha kaliya inay macmiilka wax ku soo celiso oo tiraahdo macmiil mahadsanid laakiin dhammaan adeegyada kala gedisan ee runtii ama service kala gedisan ee bulshada loo qabto bay qayb ka tahay haday noqon lahayd caafimaad wadooyinka runtii dhammaanba meel walba oo khayraad laga qayb qaadanayo shirkaddu waxay qayb bay ka qaadataa waxaana markhaati idin ah horumarka magaalada ka socday inay mar walba baritaarkeeda iyo qayb qaadashadeeda ay qayb ka ahayd waxaana tanina ay daba socotaa inaan mar walba macaamiishayada meel kastoo ay joogaan aan niraahno waa mahadsantiin nugu xiraada sida adeegyada ugu qanacdeen ayaan ugu qanacnay inaan macaamiil noo noqotaan annaguna waxaan ku qanacnay inaanu idin iraahno waa mahadsantiin oo wax idinku soo celino taasi waa qodobka labaad waxaan idin leeyahay dhammaan bulshada reer Carmo shirkaddu waxay idin la diyaar tahay inay adeegyada ballaarin ku samayso inay mataqaana xarumaheedii sii siyaadiso inay goobaha mataqaan bulshada loogu adeego ballaariso oo hadda aanu goobo runtii aanu isleenahay inta ka sii ballaariya aanu ku sugannahay waxaan ballan qaadaynaa dhammaanba deegaamadan hoos yimaada shirkadda ka maamul Carmo ahaan hadday noqon lahayd deegaanada runtii hadda laga xoreeyay ururka xagjirka ee calmiskaad iyo deegaanada ka midkaana inaanu gaarsiino adeegyadii oo aanu macaamiisha halkaa ku sugan aanu iyagana runtii aanu adeegyada gaarsiino oo aanu uga mahad celino iyagana inay adeegyadoodu ay heli doonaan insha Allah sida u dhaqsaha badan meel kasto aan horay aan Somtel u gaarina waxaan ballan qaadaynaa in adeegyadoodu gaari doonaan waxaan idin leenahay nin kasto macmiil oo nagu xiraa caawa farxi doona wuxuu ku farxi doona
inuu macmiil nala noqdo annaguna aan wax ku soo celin doono markhaati baa ka noqon doontaan waxaana hadiyadaha halkan idinka muuqda ka mida sidaad aragtaan 2 gaari oo fureese ah ama baabuurta aan oran karo dhalinyarada ama mataqaanaa dadka xaragada jecel kuwooda ugu mudan inay yihiin sidoo kale moobeelada aanu ognahay wiil iyo gabarba cid walba oo runtii xiisaysa inay ka daba dhaceen iyadana iPhone 16 ugu horeeyo ama faca 16aad ee iPhone-ka ugu horeeyo insha Allah inaanu caawa iyadana aan ballan qaadi doono inaan madasha ka bixin doono ama cidda ku guuleysata la siin doono waan hambayn doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa maamulaha waaxda iibka shirkadda isgaarsiinta Somtel soo halka uga sii wado soo dhaw Axmed Sina